it's been weeks meeshaan waxa igu jiray miro oo lindhanaan I think waxaan ku soo bilaabay TikTok videogan oo hoos link ka fiirsan kartiin ma sha Allah mirihii xididada ka soo baxayeen si fiican u dheerihiin TikTok gabar waxa iga soo weydiisay xididada oo plantiga ma taaban kartaa haddii aad taabatidna ma dhimanayaano waa taaban kartaa because markay mirahaanita ay yaraayeen aan wax ku duduubay xididadooda waa taabtay aniga horta markii aan bilaabay wax beerida horta ani xataa saas u fikiri jiray haddii aan taabto xididadii aan ka taabto ma dhiman doonaano wallahi ilaahay markiisna wax dhintana ma arkin so I've been planting for some time hadartan so anyways caagana raba inaan hadda maanta wax ku beero hadda waxa laga rabaa horta balsuga bahalkan ay dhibay darashada hadda ka fiirnayo wallahi xasad wa xasad ma show you sidoo again مجدين maradaasay meeshaas ay ugu daboolneed xaasid sidoo u yahay leeday waxa dhan u fiiqay caleemahaasay hadda ku socodana geedkaasay waa spinach wallahi laba naag isdagaalays amal rife kir oo dhaw wallahi waa inkare Do you want to go out slowly and chase him? Where they at? Where they at? He's on my middle bed. So markii arbina wax duleeliyo kombadani taxdeertaan gadaasheeda mindida la hal god bas oo sameynaya so wax weyn oo lagaaga baahan yahay ma jirto is going in hadara mindidani waa kulleen karaa laakiin wax sinimo god oo saas weyn ma lagaaga baahno wallahi geedkii soo laabta kan mindi ama ku tuuraa so jadin hadartan kombada goday leedahay so carraanta ku soo shubnaa markaas so xididka u jeedin hadartan ma sha Allah ina hadartan carrada aan gali waaye so waxaan isdhahay kombadaanete labada miraba gali laakiin xididka soo dheeraade waxaan ka cabsaday inuu ma arkino caleenta markay sii weynaato haddii aan sii kala gooyo oo labadii caleemood mise geedi markay sii noqonayaan ay soo weynaanayaan waxaa ka cabsada haddii markii aan kala bixinayo in mirihii wax gaaraan so godkaaneet maanta hadda aan carradaaneet hadda ahayo hal mir bas ku beeri doona insha Allah midda kale tan meel kale aan ku beeri doona so for this video hal caleena beerina maanta insha Allah so let me show you I'm very excited weligeen hindanaan ma beeranin laakiin say actually markii May mise June markii la gaaro insha Allah dukaana waxa aad doona aan ka soo gadan doona geed dan oo leenaan oo cid soo korsatay aan soo gadanaya insha Allah so anyways kan guriga hadda ku bilaabay sidaan u egahay okay so kana u jeedin kan ziplock ku celinaya ilaa kombadiisa u soo helo insha Allah so kana ku laabaya waxa ugu muhiimsan waxay yihiin in ay qalalin so dhac mariisa la kula laaba ziplock ku celinaya so kana insha Allah boos weena u sameynaya sidoo ma arkino xidka hadda sidaan u dheer inuu jabin so caleenta waa tawaakor si fiican u fariisinaya markaas carradan geesaha ugu soo daboolaya okay هذا سلاسل لو أجيه سفعنا أصور من دون إن شاء الله عن ميل
nala hoos dhigi doonaa so biyaha markay ka bataan godkaasay kasoo daadinaysaa markaas waxaa ugu muhiimsan inaa biyaha laga badanin ma arkino ee u haleynin meesha so meesha nalka ag dhigaya markaas hadartan meeshaana uga tagi doona insha Allah so waxaa arki doonaa liintaaneta sida usoo bixi doonto insha Allah hadartan videoga meeshaana kusoo koobaya thank you for watching the video please make sure you subscribe and yeah waa inoo maalin kaleeto